بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waxaan sii wadnaa casharkii saddexaad qaybtii labaad oo ah barashada PHP variables constant iyo data types marka maanta waxaanu baranaynaa waxay tahay waxaan loo yaqaano floatka wax kale maaha waa tiro jajaban oo ah tiro wadata number buuxa oo dhibic gadaal ka raacsan yahay ama ay wax fraction u raacsan yahay marka sida halkan ka muuqato waxaanu maalmahan oo dhan baranaynay string waxaan aragnay integer marka hadda waxaan joognaa float marka bal aynu fiirino sidaan u isticmaali karno floatka in a program sida hoos ku taal sida halkan waxaad ujeedaan sida loo abuuro tiro jajab ah wax kaloon samaynayna maaha sida halkan ku cad maalin dhaweedna aan inii sheegin programkeenu mar walba u dhexeeyo PHP ilaa iyo labadaas calaamadood dhexdooda marka halkan saad uga jeedaan meeshan waxaan ku qeexnay tiro jajaba tiradaas jajabka oo ah 315.65 halkanna waxay tahay tiro aan maaragtay ku tusaaleynayno oo programkeena aan leenahay bal tirada jajabka aan declare garaynay noogu qor screenka marka bal aynu fiirino sida aynu u isticmaali karno programkan haddii la yiraahdo marka kolley marka hore waxaa muhiim ah inaan bilaabno exam aan u sheegno inaan program doonayn inaan ran garayno kolley haddana marka labaad waxaa weeye inaan samayno file u gooniya example-kan hadda anaga aan abuurayno oo ah marka fileka magaciisa waxaan siinaynaa float demo float demo.php marka kaasaa muhiima float demo.php marka sida halkan ku qod waxaan soo koobiyey halkan tiradii markii hore aan meesha ku qornay sida halkan ujeedaan wax kaloon sameeyay male bas wixii slide-kan loogu qornaa unbaa soo koobiyey si kome labada file ay kala duwan yihiin marka inaan habeeyo un basi wax kala ma ahan marka sida halkan ka muuqata waxaan nidhi codekeena waa in u dhexeeya inta u dhexeysa calaamada kor ee PHP ku qoran iyo kan hoos ku qoran waa inuu dhexeeya labada meelood marka jajab 3 programkeena marka hadda wuxuu tusaaleynayaa siduu u display garayn lahaa tiradan meesha ku qoran marka bal aynu save garayno marka hore save then midda kale oo samayn karnaa qornaa localhost /kaydka PHP marka tiradu meesha noo joogaan ma ereyga aan bedelayno waa halkan aan u bedelayno float _demo.php halkan nooga muuqata halkaa waxaa ku cad tiradii aan u isticmaalayna programkeena markaa saa isu barbar dhigo sida halkan uga jeedaan halkaa ku cad waa tiradii marka haddaan hataa bedelo tiradaas aan xoogaa aan ku bedelo masalan kasoo qaado aan ka dhigo 415 aan save gareeyo oo save dhaho oon haddana dib ugu laabto maaragtay browserkii aan dib u fiiriyo aan dhaho refresh ku samee tiradaas way isbedeli doontaa waa qasab in isbedesho siyaalo kaloo loo isticmaali karana way jiraan masalan haddaan doonayno inaan maaragtay laba tiro jajaba isu geyno masalan aan qorno tiro kale aan dhahno tiradaas waxay la mid tahay 23.6 oo aan doonayno inaan labadaas tiro isu geyno marka waxaan samayn karnaa variable kale oo la dhaho isugeyn marka waxaan dhahaynaa isugeyn marka waxaan leenahay waxaad sugaysaa labada variable oo ah jajab
oo loo geeyey tiro kale ilaa waa variable kale oo halkaa ku qoran macnaheedu wuxuu yahay waxaan rabnaa labadan tiro inaan sugayno marka variableladii annaga aan marka hore declare garayna ayaan isticmaalayna marka totalkii haddaan rabno inaan tusno waa inaan halkan bedelnaa oo halkan saan u bedelayna waxay tahay sugayn inaan ku bedelnaa marka haddaan dhahno control s save gareeyo ama halkan tago save gareeyo halkaa waxaa ku caddaanayso labadii tiroon sugaynay resultigooda jawaabtooda wuxuu ahaa sida halkan ka cad wuxuu leeyahay macnaha waxaa jiro qalad ayaa jiru leeyahay qaladkaas oo ka jiro line 8 oo codekaaga okay line 8 oo codekayga waa kan sidaad halkan uga jeedaan waxa halkan ka maqan waa semicolonka waana ugu talagalay marka hore si aan idin tusaaleeyo marka wax kale ma aha semicolonku waa muhiim codeka php ga mar walba markaad instruction qortid haduusan ahayn if statement then waa inuu ku dhamaada semicolon haddaan halkaa tago haddana control s sameeyo programka ku noqdo aan dhaho refresh ku samee bal fiir wax soo baxa weli wuxuu leeyahay waxaa jiro some error marka aynu fiirino ereyga sugayn jajab save garayno horta aan fiirino let's try mar labaad aan tijaabino weli waxaa jiro khalad ka jira meeshan marka khaladka meeshan ka jira muxuu yahay marka tiradan jajab zero kale sidaad halkan uga jeedaan variablekii aan declare gareeyo halkan tiro kale ahaa iyo kan meeshan ku qoran labay kala yihiin marka waxaa halkan ka maqan underscoreki ayaa ka maqan sidaad halkan uga jeedaan marka waxa haddii variable aad declare garaysid oo variablekaas si ka duwan sida aad u declare garaysid aad u isticmaashid programku weli wuxuu u arkaa khalad marka meesha hadda wax ka qaladna waxay ahayd macnaha qeexitaankii variableka aan qeexnay marka haddaan meesha ku noqono oon dhaho refresh ku sameeyo waa ujeedaa labadii tiro la sugayay labada tiro oo la sugayay oo ka macnaheedu waxay yihiin jajab 415.6 iyo 23.6 marka la sugayay tiradooda waa 439.25 marka taas waxay ku tusaysaa sida loo isticmaalo jajabka insha Allah casharada soo socda halkan aan kasii wada doona haddii Ilaahay waxaan isku arki doonaa casharka dambe mahadsanidin